wafdi ka socda boqortooyada dalka Maroc ee dalka ku sugan waxaana horkacaya Othman Benjolin oo agaasimaha guud ee BMSA oo bangiga koobaad ee ganacsiga dalka Maroc waana kooxda ugu weyn dalkaasi waxa ay booqdeen marsooyinka iyo goobaha ka cagan cashuuraha waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha marsooyinka iyo goobaha ka cagan cashuuraha mudan Abubakar Umar Hadi wafdigan ka socda dalka Maroc ayaa waxa loo soo bandhigay fursadaha kala gedisan ee Jamhuuriyadda Djibouti oo ay maalgashatada dibadda waxaana looga waramay kaalinta juqraafiyeed dalkeena iyo kaabayaasha aadka u heerka sareeya iyo marsooyinka iyo waliba warisgaarsiinta ayaa kuwa keenaya in kooxdan sida gaarka loo leeyahay ee dalka Maroc ay maalgashato Jamhuuriyadda Djibouti bangiga dalka Maroc ayaa waxa uu ku tala jiraa in maalgashiyo dhowr ah ka sameeyo Djibouti sida marsooyinka iyo goobaha ka cagan cashuuraadka iyo tamarta guriyada iyo waliba warisgaarsiinta waxaan ka wada hadalnay mashaariicda maalgashi ee dalka iyo sidii ay u maalgashan lahaayeen ugana qayb qaadan lahaayeen mashruucyada horumarineed ee dalka bangiga dalka Maroc ayaa bangiga horumarinta maalgelinta dibadda waxaana uu maalgelin doonaa mashaariic dhowr ah sida marsooyinka iyo goobaha ka cagan cashuuraha iyo waliba tamarta iyo waliba warisgaarsiinta waxay og yihiin mashaariicda maalgashi ee dalka ka jira waxaana ay diyaar u yihiin inay maalgashiyo iyo mashaariic kala duwan oo fara badan ay ka sameeyaan dalka